waxaynu fadhiga 43aad ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland oo khaas u ah ansixinta miisaaniyadda qaranka 2026 kooramku buuxaa golaha wasiirada warbixintiina waxaanu ka dhageysanay wasiirka maaliyadda 40 wasiir baa jooga 7 wasiirna shaqooyin iyo fasax ay ku maqan yihiin waxaynu cod u qaadaynaa ansixinta miisaaniyadda qaranka ee 2026 oo ka badantii sanadkii hore boqolkiiba 11 tirada guud ee miisaaniyadda qaranka aynu ansixinaynaa waa tii ugu badnayd ee qarankani ansixiyo waxaanay dhan tahay 4 trilyan 584 bilyan 959 milyan 18,356 shilin oo Somaliland golaha wasiirada waxaan ka codsanayaa in la ansixiyo waxaan cod gelinayaa ansixinta miisaaniyadda wasiirada ogol in sidaa ay noogu keentay wasaaradda maaliyaddu in lagu ansixiyo gacanta taagay wasiirada diidan in sidaa wasaaradda maaliyaddu ku keentay lagu ansixiyo gacanta taagay wasiirada ka aamusay gacanta ha taagay kooramka waxaa jooga 41 wasiir 40 way ogolaatay hal wasiir uu diiday cid kama aamusin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي باكليدي مهدله فردقي صدحي أفرتناد شركة قلها وسيرة جمهورية الصوماليلاند وشور قدوميني مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله أيا كقب صومي ما أنتوا أي تاريخ تضاي تطوير لاتنك بشيكو يتمنى الله كنا شني لاتنك قصر مدحتوية جمهورية الصوماليلاند مركز لقتها وربحين حالة جودة أمنية قرنكا وكور بحيي وزير الدولة arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed magaalo fadhigii 43aad shirka golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland waxa gabi ahaanba lagaga hadlay oo daraska miisaaniyadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee 2026 warbixinta oo daraska miisaaniyadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee 2026 wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha iyadoo oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah sida ku xusan qodobka 55aad farqadiisa koowaad iyo xeerka maamulka maaliyadda xeer number 5/2016 qodobkiisa 5aad maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 11aad 2025 wasaaradda maaliyaddu waxay golaha wasiirada hor keentay u soo gudbisay oo daraska miisaaniyadda guud ee dowladda Jamhuuriyadda Somaliland ee sanadka 2026 waxa golaha wasiirada faahfaahin buuxda ka siiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Cabdilaahi Xasan Aadan miisaaniyadda guud ee dowladda ee sanadka 2026 oo ah miisaaniyaddii 35aad ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland isla markaana ah miisaaniyaddii ugu badnayd ee uu yeesho qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wasiirku waxa uu sheegay in ay miisaaniyaddani mudnaanta siinayso xoojinta adeegyada bulshada xoojinta difaaca ilaalinta amniga dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo ilaalinta xasiloonida dhaqaalaha iyo maaliyadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in miisaaniyadda sanadka 2026 ay ku salaysan tahay himilooyinka qorshaha horumarinta qaranka NDP3 iyada oo la tixgelinayo xaaladda dhaqaale ee gudaha iyo saamaynta dhaqaalaha caalamka miisaaniyaddani waxay xoojinaysaa dheelitirka iyo kordhinta dakhliga gudaha maareynta kharashaadka hawl socodsiinta iyo maalgelinta mashaariicda mudnaanta gaarka u leh nolosha bulshada Jamhuuriyadda Somaliland wasiirku waxa uu sharaxay oo daraska miisaaniyadda dowladda dhexe ee 2026
oo dhan 2,866 bilyan 183 milyan 586 kun iyo 190 shilinka Somaliland halka miisaaniyadda 2025 ay ka ahayd 2,593 bilyan 431 milyan 231 kun 888 shilinka Somaliland farqa u dhaxeeya labada miisaaniyadood tii 2025 iyo doolarka 2026 waxay dhan tahay 227 bilyan 752 milyan 316 kun iyo 222 shilin Somaliland taasoo macnaheedu yahay farqa u dhaxeeya miisaaniyadda 2025 iyo 2026 marka boqolay loo bedelo waa boqolkiiba 11 wasiirku wuxuu xusay in miisaaniyadii hore ee sanadihii 2022 2023 iyo 2024 uu ku yimid dhinaansho ama hoos u dhac celcelis ahaan gaarayay boqolkiiba 11 iyadoo miisaaniyadda 2026 marka loo eego miisaaniyadda 2024 uu jiro kororsiimo ah boqolkiiba 22 taa macnaheedu waxa weeye boqolkiiba 11 ahaan dhinaanshihii miisaaniyaddii 2024 wasaaradda maaliyadda waxay ku guuleysatay inay 11 bilood ee xilka haysay ay daboosho isla markaana waxay kordhisay oo doolarka 2026 miisaaniyadda 2026 wuxuu kordhay boqolkiiba 11 marka la isu geeyo waa koror ah boqolkiiba 22 dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda waxa uu si waafiya golaha ugu faahfaahiyey qaybaha ay ka kooban tahay miisaaniyadda 2016 ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland kuwaas oo kala ah miisaaniyadda dowladda dhexe miisaaniyadda dowladaha hoose mashaariicda baanka adduunka iyo baanka horumarinta Afrika iyo miisaaniyadda hay'adaha macaashka sameeya marka la isku wada geeyo afartaasi waxay noqonayaan 4 trilyan 548 bilyan 950 milyan 18,356 shilinka Somaliland sidoo kale wasiirku wuxuu golaha u sharaxay siyaasadda kharashka ee miisaaniyadda 2026 kow mushaar kordhintii iyo qaramayntii ciidamada madaniga ah iyadoo aanay hore ugu odorasnayn ama aanay hore ugu jirin miisaaniyadda 2025 laba howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dowladda 3 sanduuqa horumarinta dhalinyarada 4 maamul daadejinta 5 horumarinta adeegyada bulshada 6 iyo kor u qaadidda wadaniyadda dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu golaha la wadaagay meelaha ay miisaaniyadda 2026 mudnaanta koowaad siinayso taasoo ah kow amniga iyo xasiloonida qaranka waxbarashada caafimaadka maamulka dawliga ah wax soo saarka gudaha iyo arrimaha deegaanka ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda maaliyadda waxa uu sheegay inay wasaarad ahaan ka go'an tahay inay ka midho dhaliyaan doolarka dakhliga miisaaniyadda 2026 sidaa awgeed waxa uu si sharaf iyo karaamo leh uga codsaday xubnaha golaha wasiirada inay ansixiyaan miisaaniyadda qaranka ee 2026 si miisaaniyadda waqtigeeda loogu horgeeyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland intaa kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu xubnaha golaha wasiirada ka codsaday in cod gacan taag ah loogu codeeyo doolarka miisaaniyadda qaranka ee 2026 40 xubnood oo ka tirsan xubnaha golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa fadhiyay kalfadhiga 43aad waxa uu codeeyay 40 wasiir hal wasiirna wuu ka codeeyay cid ka aamusana ma jirin wabillahi tawfiiq